gudahaan ducaahan guudkaydii sudhnaaye nabad gaalo caruur wiilaliyo gabdhaale guulaydin ku jee waxay farxad galshoon maanta guuxadiyo gibladaba ilaahay sukan keenay muwaafaqana siiyay midnimada siiyay asaga mahad iskale waxaa kaloo mahadsan oo aniga u mahad celinayaa raggii shalay taagnaa ee reer waafate ee maanta u taransuulay danta reer waafate wiilashii ordaayeen yaa mahad mudan kaana loo soo reebay inaan xishmayno oon ogaano oon boqor iyo ugaas weliba ka dhigno maxaa yeelay asagaa noo soo haray marka niman yahow horta midnimada reer waafate aad baan ugu faraxsan cabdirasaaq yaan lagu fiirin cid kaloo asaga sokoy u sii oo naga sii xigtay yaan lagu fiirin reer waafate oo halkoo haajir meel haga guda guntado masku raacsanna sidaas بسم الله waxaan ku bilaabayaa horta awalan ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh waxaa kaloo mahad iska leh qabanqaabiyaashii soo qabanqaabiyay shirkan maanta beesha reer waafate ee maartay hal wada ay ku dareertay isku raacday yaan u mahad celinaa waxaan isku raacnay annagoo ah beesha reer waafate inuu noqdo musharax anaga kursiga abaqayle MCA ee loo yaqaano inuu yahay walaalkan Haajir Maxamed Daahiye muddo dheer bay soo socotay maanta waxaan go'aansanay inaan badhigta gaarno mase go'aanka cidi waxaana qaatay Haajir Maxamed Daahiye inaan kursiga uga harno kudigaana waxaan siisanay kursiga walaaltinimo iyo reerkii iyo ehelnimadii marka ma ahan qof xun ma jiro qof taga ma laha qof wax laga qaata ma lahan nin kasta wuu tanaasulay wuxuu tanaasulay midnimadii cidda iyo reerkii waayo siyaasadda waxaa waaye haddii xamaasad ku qaado mase ay ku qaado adig kale wax hel waa lagu kala tagayaa marka waxaan go'aansanay inaan reerka u turno annagana isku turno maadaama haddana da'ba iska jirtaa meesha annaga raggaana ay kala dhalinyaraan iska nahay ninkana waa nin maaragtay annaga naga weyn marka waxaan go'aansanay asaga maadaama uu naga weyn yahay bal maanta inaan fasaxno oonan lugahan u gelin si lilaahi baan ku fasaxnay waan la dadaalaynaa waan meel kastaan u gelaynaa abaqayle kursiga waan soo ridaynaa insha allah gacantii ciidana ku soo celinaynaa kabacdi waxaan ka rajaynaynaa markii asaga uu ka daalo inuu nagu soo wareejiyo annagana insha allah waxaan salaamayaa maasha allah inta ay fiirsanayso salaan kadib maanta waxay aad iyo aad igu tahay farxad in aan noqdo ninka ma aragtay u loolami doono kursiga abaqayle wuxuu leeyahay maaragtay muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay beeshan insha allah waana ku guuleysan doonaa waxaan u mahad celinayaa walaalayaashay oo maaragtay kursiga ay kana soo hawoodeen oo ii tanaasuleen aniga iyo maaragtay beesha daraadood waxaana leeyahay insha allah waxaan qaadi doonaa campaign oo maaragtay aan qayli lahayn iyo qalalaasa kurana waxaan ka raysanaynaa beesha Cawlihan oo meesha wada degan oo maaragtay ka kooban 9 dab ayaan ka raasanaynaa marka waxaan Soomaaliyeynta ugu baaqayaa in insha Allah aan u imaan doono kuurahana ka codsan doono guulna rajayn doono insha Allah guul baan rajaynaynaa taariikh 9 bisha 8 sanadkan aan ku jirno sida certificate-kan hadda aan u qaatay ayaan insha Allah kan kalena rajaynayaa inaan u qaadan doono dadaalkeedana u baahan tahay tashi rageed bay u baahan tahay iyo de rabbi oo raali ka noqdo ساسد وغانيسان ما شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته